taliyaha howlgelinta ciidanka BMBF General Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo ay weheliyaan saraakiisha sarsare ee ciidanka ayaa kulan kula qaatay magaalada Boosaaso taliyaha howlgallada rayidka ee Midowga Yurub oo uu weheliyo madaxa EUCAP Soomaaliya. Kulankan oo ka qabsoomay xarunta howlgallada iyo la socodka dhaqdhaqaaqyada badaha ee ciidanka BMBF ee MOC ayaa looga hadlay wada shaqaynta labada dhinac, sare u qaadida howlgallada EUCAP Soomaaliya ay ka fuliyaan dalkeena gaar ahaan Puntland iyo dardargelinta iskaashiga tababarada socda ee lagu tayeynayo ciidanka BMBF iyo in la iska kaashado wax kastoo liddi ku ah amniga, qaanuunka iyo xasiloonida badaha dalka iyo kuwa caalamiga ah. Dhinaca kale, taliska guud ee ciidanka BMBF ayaa ku adkeeyay wafdiga Midowga Yurub iyo EUCAP Soomaaliya in sare loo qaado howlgallada ay ka fulinayaan dalka, isla markaasna lagu saleeyo qorshayaasha hortabinta leh ee lagu horumarinayo amniga Soomaaliya gaar ahaan Puntland, kuwaasoo ah tababarada ciidanka iyo qalabeyntooda, taasoo muhiim u ah in guul wadajir laga gaaro yoolasha midaysan iyo wada shaqaynta labada dhinac.